السلام عليكم أصحابتيدا qiimaha iyo qaayaha badan la soo dhawaada asxaab aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin in aad channelkay ku xiran tihiin oo gabadhiina support gareynaysiin 1028 subscribers ayaa gaarsiiseen soo marka waa kana fiidiyoyaan idiin soo dhigaya ii sheega waxaad jeceshihiin oo kale okay ba fiidiyogan waxa weeyaan Sunday night aniga Sunday night markay tahay waa reset day ay tahay okay so waa maalinta oo aan sameeyo cuntooyin kala duwan oo weeka dhan maaragtay weeka dhan ma ku dhihi kari 3 casho weeka cuntadoodan sameeyaa maalin qura okay so markaan sameeyo portions aan sameeyo ilmaha waxaan waridaa tilaagada ayaga ayaa markaa cuntadii kululeysto way baxaan hooyo busy aan aniga ahay moogta oo shaqo oo laga rabo 10 hours ay meel fadhido you know marka maadaama hadda tahay hooyooyinka oo maartay wadamadan ku nool westernka ah oo de bisiga ah waliba hooyo kaligeed ah hadda tahay channelka ay ku xidhno okay waxyaalo badan aan soo gelin doonaa insha Allah oo ku saabsan ilmaha hooyada maxay tole ay cuntada sameynta lifestyle-ka oo hooyo kaligeed ah basically okay iyo waxyaalahan qabana moogtahay so maanta marka waa maalintaas oo kale quraacaan u sameeyay ilmaha quraacdooda aan kala dhigdhigay haddana casho ayaan sameynayaa ama qado waxay rabaan baa u cunaan iyagoo taala tilaagada u geliya aniga waa u kala yareeyaa tilaagada marka u geliya iyaga kaligood kala soo baxay moogti laakiin aniga I make it weegi adiga 2 casho ama 3 casho ayaan cunto sameeyaa maalin kasta ma geliyo kitchen waqtiga maba ii saamaxayaba maalin kasta inaan maarta cunto sameeyo oo kitchada galo so marka waa inaan fikir la imaano iyo siyaabo maarta aan uga maarman karno kitchada inaan ku jirin caawiyo bariba okay so marka aniga 2 casho inta badan ayaan meel u dhigtaa si aan aniga cunto ciyaalka ugu sameeyo okay so waa kana cuntooyinka kamid ah waxa weeyaan kan hadaan sameynayo waa bariis oo shaqo maba ka rabo waxa ku sameeysaa rice cooker-ka hor u ka dhamaaday suugada le gacanta saar suugada le suuga macaan ka dhig ilmahayga maadaama yihiin qaarkood hilibka cunin waxa aan u sameeyaa shrimp ama fish ama waxyaalaha kale hadda marka suugadan waxa weeyaan shrimp ayaa ugu sameeyay ilmahayga so wakaas sheekada waa isku dhan tahay maxaaba ku wareeriyaba so meatka markay noqotona waa u sameeyaa ilmahayga marmar meatka kuwa jecel kuwa kalena waxaan sameeyaa wax oo maaragtay seafood oo kale ah so still maalin quraan wada sameynaa 2 maalmood ma kala sameynayay maalin quraan sameynaa labadaas haddana maalin kale ayaan sameynayaa wax oo kuligooda wada cuni karaan oo week inta kale maaragtay gaarsiinayso so marka hadda waxyaalahaas oo kale jeceshahay YouTube-ka ku xidhnow maaragtay insha Allah marka wax iga faa'iideyso adna wax ka faa'iideysto fiidiyoyadeedana ii share gareeya guys gabadhiina aan ahay watch hour-ka siiya watch hour-ka la iga dhiman hadda ma ogtahay so de khayr idin rajeeyay waan idin jeclahay guys love you so much subscribe to my channel share my channel and like my videos